السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي ومدايدي ميل كستا جوجتان I hope دمانتين لدنتين عافماد قبطان نمعيسانتين ميل كستا حلي كستا يساعد كستا يدنتهن الله سبحانه وتعالى يدنكو حفتي وانو ناديو يدنكو سو نقضي إيا نذر فيديو ما إيا عافماد قبطان من نمعيسانتين دما ولا الله قدان لك سو بيرو ويلكم سو دوادا ميل يدنك تشعليها ولا الله يجي هورو ويلكم باك دمانتي سو دوادا فضلا فيديوغا لايك تسارة لايبتو dhiirigelin ay weyn ayay noo tahay insha Allah bidmillah karin idinkana free ay idin tahay anigana as always abaal weyn ayay idinku haday waa mahadsantiin jazakallah khair insha Allah bidmillah karin videoga kan maanta waxaan videogan iyo videoga ku xiga bar 1 iyo bar 2 ban ka dhigay waxaan kaga jawaabayaa ama aan fikradayda ka qaybsanaya gabdho walaalahay oo commentiga iyo walaalay arintan ka soo hadal ama oo commentiga ila soo qaybsaday commentiyadiina sidaad ogtihiinba waqti kasta waxay ku ahaatay commentiyada aad ayaan u akhriyaa maybe haddaan mid aan ilaa waay dhaafto iga raali ahaada laakiin 100% waxaan isku dayaa every comment aan akhriyo inaan ama qofka thank you yirahdo ama uu soo jawaabo maadaama idinka waqti aad geliseen oo comment soo qorteen ana insha Allah bidmillah karina I will continue inaan commentiyadiina ka soo jawaabo idin barto halka aynu ka wada sheekaysano fikradana waa inaynu isdhaafsano Allah bidmillah karin markaan commentiyada akhriyo haddii comment aad soo weydiisay ama tirado walaal ka soo hadal oo aan arko comment bulshadeena ay u baahan tahay insha Allah bidmillah karin video ba ka soo duubaya haddii mid labadeena kaliya aan aniga fikradeeda walaashay la qaybsanay ama walaalkay markaas wixii aan u malaynayo adiga ayaa commentiga kuula soo wadaagaya insha Allah bidmillah karin hadda sida always arabtana private ila hadashana snapchat kayga hoos baan kusoo qoray snapchat kayga always wada igu soo darsan kartaan waa la isoo message garan kartaan waxaa jirta inaanan berigii hore qof kasta oo snapchat-ka igu soo darsada waan accept garan jiray laakiin beriyahan dambe waxaan bilaabay inaan qof aan Soomaali wadan qof ajnabi oo aan aqaano ama contact-ga ku jira waxaa igu dhacday oo gabdhaha Soomaalida badana muhiblo iyo magac Soomaali haduu ugu qorayo okay waan gartay ama aan ku aqaado ama yaanan ku aqoon waa ku darsada laakiin hadda ragga waa iska ilaaliya maalin dhaweed wiil cali waxa sayleeyay ayaa igu soo darsaday wiil Soomaaliyeed oo caadi waan ku darsaday nin qaawan baa iga soo horbaxay uu soo diray ninkaas hadana Soomaaliya jooga subhanallah ma jawaan xayawaan shoogay shaqadan joogay ilaahay baa ku dhaartay hatta dhinacyada fiirkayaan baan mooday marka hadda go'aan waxaan ku gaadhayba qof nin Soomaaliya ilaa aan aqaano qof fikrado walaal magacaygu waa kaas snapchat chatkan kugu soo darsanay nimankii waa ka baqaya nimankii waliba magac Soomaaliya wata ceeb ilaa wana ka shifin taas waa taa sidoo kale dadka hadda ajnabiga magacyada Soomaaliga sidana waa ka baqa bariga hore waa iskaga darsan jiray maadaama waxa jirta ajnabi badan oo magacyo nickname wata iyo sidoo kale iyadana maandhow qof magac ajnabi wata ayaan ku darsaday waaba naagaha kan isxayisiyo qaaqaawan oo naagta isu salsalaaxaysa marka hadda ajnabigi unless qof aan garanayo uu yahay ma ahan iyagina waa ka baqayo iska day Soomaaligana wiilashida waxa la yiri abalkii xunba abal badan xumeeya marka iyagana saasaan uga baqaya so insha Allah bidmillah garaada igu soo darsatay ama aad rabtay inay la hadasho wiil Soomaaliya tahay isoo sheeg waxa tirada qofka caynkaas aan ku gartay because hadda waxaan ka baqayaa nin qaawano bahalkiisi dhulka la wareegaya inuu meesha noo soo galo waa maxay nimanka raxshoonay subhanallah marka taasi waa taa insha Allah bidmillah karin marka mar walba hadda adiga rabtay inaad private ila hadashid labadeena waxay naga dhaxaya comment ku soo qoraya marka insha Allah bidmillah karin hadda fikrad aan u baahantii inaynu ka wada hadalno always commentiga waa ila wadaag karta marka videoga kan iyo videoga ku xigaba laba commenti ama saddex commenti oo aan rabo inaan ka jawaabo fikradaydan aan ka dhiibto idinkuna fadlan fikradihiina ka dhiibta ayaan kaga hadlayaa oo aan la soo dahay igana raali ahaada walaalahay waliba videoga dambe gabar walaashay mar hore ayay weydiisay bal intaas niyadan ku hayay laakiin waa iska garan kartaan marka commentiga ugu horeeya waxa weeye wajirta hadaynu Soomaali nahay in aynu wax istarno inaynu adeega kala qaadano dal iyo dibadba waxaanka anaga iyaga xataa qurbaha joogna waxaad maqlaysaa heblaay yaayin elevatorka isoo saar dadka guryaha wada deganaa anigu nasiib xumo dad Soomaaliya kuma dhawey inaynu wax kala qaadana waa okay aynu wax isdhaafsano laakiin ka waran waxa laga qaadanaya markay noqoto maalin walba gabadha deriskaaga maalin walba ay ku soo wareegto doctorada barnadeesi basashiisi marka intaan fikradayda dhiiban waxaan idin la qaybsanayaa walaashay macaan commentigeeda ay ii soo qorto iyadoo kabacdana fikradaydan ka dhiibanaya insha Allah bidmillah karin idinkuna bar fikradayda ka dhiibta walaashay qaali messagekeeda inta kale ma qorayay waxay tiri waxaad nooga soo warantaa walaale waxaad nooga soo warantaa dadka lugooyada badan ee dhaqaalahaaga aad wiiga ugu tala gashay ama bisha maanta oo dhan wax ka soo raadsanaya aana baahi qabin laakiin dhaqaalahooda ayay kugu dul ilaashanayaan adigana aad xeerinaysid ama xaq dhowraysid darisnimo iyo ehelnimo see yeela arintaas ayaa i haysata
marka walaashay arrintan arrin badan way dad aad badan baa jira ma sha Allah galad walaashay inay soo weydiisay iyadoo ku insha Allah video ma kasoo duubay inaynu anigu waxaan ahay qof even xataa beriga yara aad ayaan u nabcanaan jiray inaan deriska u xudiido waxaan ahay hadana dadka gacanta weyn qof haduu cusbo yar weydiiso kiish weyn baa u shubaa marka deriska inaynu wax siino oo isxaq loorna aad ayay u fiican tahay in waxna kala qaataana way fiican tahay in adiguna deriskaaga wada u baahan deriska laakiin ka waran sida hadda gabadha walaashan aynu sheegano marka deriskaagii dhaqaalahaagii la dagaalamay ama adigu qof even hadda taajir kasta aad tahay qof maalin walba inta kusoo socdo kanaysi ku odhanaya way dhib badan tahay marka qofka kan walaashay aniga waxaan odhan lahaa fiiri gabadhan walaashay hadda waxayna tahay qof dhaqaalaheeda kugu dul ilaashanaysa soo gabadhan waa qof ay og tahay oo wax haysta laakiin mar walba iyadu wixii ay wiiga ugu talagashay ama bisha ay ugu talagashay la qaybsanaya kabacdi marka adiga waxaa kugu dhici karaya inaad tahay qof ama bil loo soo diro ama odaygaaga mushaar ku siiyo ama lacagta intaas kusoo gasho wixii aad wiiga ugu talagashay dee qofku mar wuu kuusoo baahan karaya laba wuu kuusoo baahan karaya laakiin hadduu wixiisi kugu dul ilaashanayo xoolana uu haysto taas aniga khalad ayaan u arkaa waana laga yaaba inay aniga dhaqankii wastiga aan la qabsaday ay tahay I think aniga khalad inay tahay qofka walaalkaya markuu kuusoo baxdo waxaad siin kartaa adeega maalinaha cusbo ka yaartay maalin yaaya ka dhamatay laakiin qofkii oo dhaqaala haysta sida abaayo ay tiri hadduu maalin walba ku dul taagan yahay I think waa khalad ixtiraamka iyo respectiga iyo runta laysu sheegaana walaalayaal way kala duwan tahay qofka adigoo ixtiraamaya ayaad feelingkaaga runta u sheegi kartaa hadduu kaa khaldan yahay aad odhan kartaa walaalayaal adigoon caayin xumaynin bahalkayn qofkani markuu aniga gabadha deriskayga every single day ama every other day markay ii timaado yaayadii bariiskii hilibkii iga qaadato waxaan odhan lahaa anu maanta dambe go-aan baan gaadhay waxaan lahaa fiiri faadumoy walaalo maanta waa ku siinaya waa kan adeegaagii maxaad u baahantay wayba ma dhibaatadu maxay jirtaa haddaan ogahay qof dhaqaala le ay tahay sida abaayo dhaqaalaha igu ilaashanaysa waxaan odhanayaa maanta intii ay iga rabtay intaan siiyo waxaan la abaayo wax makuu sheega fadlan maalin dambe waxba ha iga soo doonaan aniga waxa kan yar wiigan ayaan ugu talagalay labada wiig ayaan ugu talagalay dee adigana wax la-aan kuma haysa waynu is ognahaye fadlan waxaan kaa codsanaya sida aan anigu yeel waxaaga wiigaaga isku ekayso aniga maanta wax ka dambeeyana unless dhibaato ku haysato maahane walaali fadlan waxba kuma siinayo hadalka hadduu fiican yahay moogtay maaha in la ixtiraamku isaga oo adigoo qofka ixtiraamaya ayaad haddana runta u sheegi karta oo de feelingkaaga u sheegi karta inaga dhibka ina haysta waxay tahay inagoo wixii ka xunbaynaan sheegan markaasuu qofkii kale kugu dul soconaya marka haddii waxaan wixii adiga kaasoo go-a uu yahay qofkana uu dhaqaalihiisa kugu dul ilaashanaya anigu runta ayaan u sheegi lahaa waxaan odhan lahaa maalinta iigu dambeysa waan siin lahaa laakiin waxaan odhan lahaa dib dambe ha igu soo noqon maalin dambe aniga walaali fidlan unless ay baahi ku haysato oo dhibaato ku timaado maalin dee biil baad qaadatay walaa intaada isku filaysay ana inteedaan isku filaysinay afcad baan u sheegla next day imka dambe hadday ii timaadee naag indha adag tahay dee go-aanka adiga iska leh ama waad u diidi kartaa ama waad u yeeli kartaa marka qofku waa inaad runta u sheegta aniga waxaa jirta gabadh aan aqaano oon ogahay inay shaqayso maalin bay iila soo hadashay alaab ilaa $2,000 ayay wax bilaa micnaa kusoo gadatay waxay iigu tiri 2,000 ayay alaabtaa kusoo gatay anigu xataa waan la yaabay naama 2,000 oo dhan yaab waa qof aan ogahay hooyo single mother 2 caruur haysata kiro laga sugayo biilo laga sugayo caruurta iskuulka laga sugayso haddana saasay tahay wiigii dambe wiigii hore oo kale waxay soo gadatay alaabta wiigii dambe waxa aan $70 ahayn ayay ii weydiisatay waxaan ku ii dhegeyso wiigii hore $2,000 adigo ayaad waxay nagu tiri kiradii bisha tan ma hayo weli ka waran wiig ka horna $2,000 waxaan ku iri $2,000 waxay hebel haabad kusoo gadatay kiradaadina ma haysatid caruurtaada $70 aad wax ugu samayn lahaydna waad weydiisanaysaa waxaan aad samaynaysaa heblaayo khalad wey laakiin maadaama aad aniga maanta weydiisatay waa ku siinaya laakiin please dib dambe hay soo weydiin waxa weeye because waan ogahay lacagteeda inay ku ciyaartay qofkaasoo kale enabling waan u diidi karayay laakiin I felt bad maadaama ay 2 ciyaal oo yareen meesha ay soo galeen waxaan idhi maanta caruurtan wejigood ayaa kugu siinaya laakiin adiga ayay ku talasad kiradaada iyo dhaqaalahaaga yeel lahayd laakiin waxaas waa khalad aad samaynayso maalintii horena waan kula yaabana marka waana kuu sheegay maba kuu qarin ma $2,000 marka waxa weeyaan qofkaas oo kale dhibaataysnayn inaynu inagu dhibka ka saarno waa khalad qofka inaynu dantiisa uu inagu wato maaha sababta way garatay gabadhaasi inay dhaqaalaheeda haysato laakiin gabadh walaasheeda oo miskiinada oo ama deriskeeda ama la xoola ayay xoolaheeda ka qaadanaysa marka waxaaga adiga ayaa iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan adiga ayaa ka mas-uula wiigaaga adeega aad
ku adeegatay ama bisha wixii aad isku kulaysay sadaqo waad ka bixi kartaa qofkii ku yimaado cunto waad uga karin kartaa isna wax waa ka siin kartaa laakiin qof isaguna dhaqaale haysta oo adiga rabo waxaaga inuu kugu korsocdo taas waa khalad marka walaashay waxaan oran lahaa insha Allah bidmillaah karin gabadha next time ka dambe ay ku timaado runta u sheeg waxaa tirada abbaay aniga maalin walba adeeg aan ku siiya igama go'o adeega kan wiig ayaan ugu talagalay waad ogtaa caruur baan haystaa family baan ahay ama ninbaa dee biil ku siiya ama adigu waxay kusoo gala un weeyaan biilkii bishan iyo wiigan aan ugu talagalay weeyaane waybaad maalin walba waxay iga soo raadsantaa dhibaatada ku haysataa maxay tahay haddaad ogtahay inaanay dhibaato haysatan saad ii sheegtay dhaqaalaheeda kugu ilaalsanaysan iyo kugu kor socon bini aadmigu qofka dabeecadda fiican qofka dulqaadka badan qofka ixtiraamka badan qofka waxeeriya way ku dul socdaan laakiin in aynu runta isu sheegno ayaa waa muhiima in aan noloshaada adiga ayaa iskale ilmahaagaas ayaad ka mas-uul tahay iyo waalidka qof kaleed adduunka ilahay mas-uulka tahay ma jirto ilaahay wa subxaana watacaala waalidka ku dhalay iyo kuwa aad dhashay ayaad mas-uul ka tahay oo waajib kaa saaraya dadka inta kale xataa walaalaha kula dhashay iyo dadka muslimiinta iyo gaal iyo islaam waa wixii aad u awoodo inaad tartay laakiin labadaa qof waxaagay dadka caruurta aad dhashay iyo waalidka xaq ayay kugu leeyihiin marka qof aan xaq kugu lahayn yaanu kugu kor socon teeda kale aniga wadankeena waxaan aad uga yaabanahay iban qurbaha ay taagan tahay qofbaa qof kale dul fadhiisanaya qofkaas isagoo mushahar soo galo hadda maalin dhawood gabadh waxay iga sheekeynaysa Nairobi joogto waxay tiri gabadh baa ila joogtaa gabadhaas waan ogahay bil walba $500 baa loo soo diraa bay tiri gabadha tana iyadana $200 baa loo soo diraa guri bay degantay waa hooyo ilma haysata waxay tiri naadiyo $50 inay nagu darsato daaye waxay tiri saqda dhaxta caruurta cadoodii waxay tiri way ka cunaysaa ma ah cuntada inay sheegayso laakiin inay lacag ku darsato ma ahaan biil ma bixiso kira ma bixiso cunto ma bixiso waxeed iyada qaarata haddana saasay tahay sariirteedii aniga google bay tiri marka inaga haddaynu Soomaalinahay waxyaabaha aynu qaybteena sameeyna aad bay u dhaqan xun tahay qof family baad la joogtaa oo hooyada dhalin oo walaasha ahayn oo ku dhalin adigoo gabadh weyn lacag baa lagu soo diraa family-gan aad la digan tahay iyadaba cuntadoodina maalin walba wad cunaysa sariirtii guriga ay kirada ka bixinaysa waa ka bixinaysa at least waxaad garan weyd inaad $100 ku dartid inaad tirado war $100 si qofku haddaan waxba haysan oo qof arday oo dhalinyaro yahay okay laakiin qof lacag qaata marka inaga haddaynu Soomaalina kor isku noolaashaha aynu isku kornoolahay khalad weeyaan marka macaanay qofka waxa weeyaan qofku inaynu nidhaahno inaynu runta isu sheegno ayaa muwaajib ah insha Allah bidmillaah karim marka insha Allah walaashay waxaan leeyahay ha xishoon adigoon xumaan samayn adigoon khalad samayn gabadha runta u sheegayaan xoolahaaga iyo adeega yar caruurtaada ku korsanaysid sida ayadu biil u qaadato adayaduguna biil u qaadataa marka waxeeda iyo ku kor ilaashan runta u sheeg hadal cadna always wuu fiican yahay inagaan xumaan samayn inaynu hadalka cad qofku runta u sheegno marka insha Allah bidmillaah karin intaynu video kale ku kulmayno khayr ayaa idin rajaynaya waxaan isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh until next video khayr ayaa idin rajaynaya